kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel wiilad kala socotiin warbaahinta Bayaan TV waa barnaamijkeena qaybtiisa labaad ee jilibku ruxuta waxaan wareysan doonaa insha Allah inta baraali ka noqdo Nuur Maleele oo kamid ah shakhsiyaadka ku nool gudaha magaalada Wajeer sidoo kale tan isaga ah xamaali ama jilibku ruxuta afka qalaad ee Kenyaanka loo yiraahdo hasla waxaan ka wareysan doonaa shaqadiisa goobta sidoo uu bilaabay caqabaduhu kala kulmo iyo waxyaabo markaas ku qalifay muxuuna ka soo saaray dakhliyahan asayaan wareysan doonaa biidnillaahi albaari waxaana si toos nagala socotaan warbaahinta Bayaan TV ee gudaha magaalada Wajeer haddii aan wareysigan aan bilowno نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وما تنتين بيان تي في ساسي وسو مادين مانتا وما مادين قفتيد وكما تنتين نور وقفك الصومالي كليئة مالك مركان فيرني أو تلو كبها فكرة كبتولدة واحد كسو فكرة جرتمية mise waxa waayaha dambe kugu soo biiray adoo markaas inoo sharaxay fikraddan waxa ugu soo biiray si uu nolol maalmeedka ilmaha oo qotloonka ku helahay ayaan ku fikiray horaana waxaan ka shaqeyn jiray dukaamaan xamaali ka ahay tii waan ku celcelin waay waxa ii soo wartay inaan muruqmaasho iska noqdo gacantayda isticmaala anoo khibrad u lahayn halkan iska fadhiistay si uu la xarbinay hadoo u jarrabayna hadda alxamdulillah waxyaal aday ilmaha dabkooda waa u shidan yahay dugsigooda waa dudayin hadda ilmaha dadka dhaxda ku jiraayeen marka alxamdulillah oo nolol maalmeedkeeda oo mahan ka raadsadaa nuur waxaad leedahay aduu khibrad u mali malaha wax barasho arrinta ku saabsan maad u soo marin wax khibradoon ma hore u soo marin malaha halkan baan ka bilaabay sin waxaan iska soo qaatay kabatale iyo rangu ma soo qaatay halkan iska fadhiistay bismillaahir rahmaanir rahiim baan ku bilaabay nuur marka la soo tago farsamadan waxbarashahaan weli dugsi ma gashay ama madaaris ma soo baratay cadadaada waxbarasho waa intee cadayda waxbarasho iskuul waan soo maray ilaa iyo form 4 dugsina ilaa iyo dhexda waan ku gaaray laakiin hadda waxaan ku shaqaynayo oo ama dawladda ugu shaqaynayo ama khibrad ahaan oo ugu shaqaynayo meeshan ma aha laakiin waa soo akhristay oo ilaa form 4 waan soo bagay sanadkii iskuul bogtay nuur 12 aan iskuul bagay دراسيت waxaan bagay 28 ilaa 12 magaalada baan joogo maraan dawladda wax ka holi iyo mar kaleba magaaladan baan ku noolaa wali dawladda countiga Soomaaliya Wajeer ama tan dhexe baan yiraahday wax fursad ah ma ka raadisay ma isku dayday inaad waraaq dalbatid ama macnaha address shaqo noocaas wax badan aan countigan dabaroor la hadda ilaahay wax isaga kulmo male wali marka wax badan aan countigan dabaroor waxna kala ma kulmo ilaa wax bagal ma kulmo wali nuur Soomaalida dadka way yeestaa dadka markaasi farsamada siiba dadka kabaha buraasha bulshada ku dhax nooshahay Wajeer aqabada nooceed kala kulanta waxyaalo badan aan kala kulmo afku hadal laha iyo waxay noqoto waxyaalo badan aan kala kulmo madaraab ahaan maraha baan waxa lagu yeeraa kaba tala lagu yeeraa aflagada kamid tahay aan waan xamaashaa marka qaar dad baa maan soo tuurina oo filan ahaan ugu imaadayeen oo daawashaan teed kala caqabada kala bulshada kala kulmo markii galbanaya ama ciyaalkeedii Allah ka dhigay khibradahan umiyadka Allah baa lagu cayaabo macnaha umka sida Ilaahay ku abuuray sida Ilaahay uu ma lagu cayaabo ilmeeyda hata waa lagu daraabayo ilmeen ninka gaabnaa ma loo yaqaan macnaha ilmaada wax loo magac dhaba ninka gaabnaa ilmiisi jidka loo istaagay waa lagu fiirsanayo markii markin haya ciyaalkii bilcaanta waxa ugu darnaadeen hata waab li soo dhagaxayaa khibrado badan aan kala kulmaa bulshada dhexdeeda reer Wajeer meeshan markii aan fadhiyo saas kala wato ciyaal iyo bilcaan baableen iska soo galaabiyo fiirsi fiidiyohan yaab ligu imaadaa marka nuur taa laga soo gudbo ciyaal ahaan maanta aabaya tahay imsa ciyaal aad leedahay 5 ciyaal aan leeyahay iyo aniga iyo gabadh ilmaha dhashay todobaasan ku nool bolodkan joogo marka alxamdulillah haddana meeshii doon ku dhaqana alxamdulillah ilaahay wuu nabadgeliyay nuur marka laga soo tago ciyaalkaasi maalinlahaada shaqadan skillska ama farsamadan ama koobarashada ama kawtolidan wax quman ma ka samaysaa alxamdulillah ilaahay baan u warsaaqo noo nooleystay
maalin kastana waqtigeeda kullu yawm huwa fi shan yalla marro ana maal kasto waxay wadataa waxay wadataa kow maan adoo yar liceysanaad galbane maan alxamdulillah ma qutulyoonka ilmaha waa helaysaa daraar basis ilaahay waa ku barsiiyay waa saas baan kala kulnaa meeshaan haddii aan fursadda ku siiyo bulsho badan ayaa ku daawanayso oo markaasi la socota Bayaan TV aata dad muxsiniin ah ama dawladda lafteeda baaq nocmeed u jeedin lahayd adoo markaasi la hadlayo hal iyo labo muslimiinta waddanka ku nool waxaan baaq u jeedin lahay nin walba muslim ah oo gargaar ii suubin kara inaas gargaar ii suubiyo maciishada meeshaan ku nool nin walba arkaya saanan ilmo ku koriya way ku akhristaan dugsi iskuul on qutulimoodka maalmeed maan ugu raadiyaa wixii muslimiinta gargaar ii suubin karaan ilaa dawladda midda hoose midda koro wixii gargaar ii suubin karayeen waan ka codsan lahaa waatay nuur aad u mahadsantahay allah mudan waatay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa nuur oo ka mid ah bulshada ku nool gudaha magaalada Tanwajeer sidoo kalena ku xamaasha farsamada ama kabatolida intaan ku kulmi doona barnaamijka kiis xiga ee jilib ku ruuta ama qutulyoon waa maxamed kulimanele maalin wacan